waxaan idin hayaa youtube-ka waxaa wareegayso nadiiro waa la xidhay nadiiro waa aroostay. fanaanada Nadiira Nayrus ayaa afka furatay kadib markii ay sheegtay in loo geystay gafcad waxayna fanaanadu sheegtay in lagu tilmaamay in xabsi la geliyay oo jeelka loo taxaabay sidoo kale waxay sheegtay qaar kalena in ay ku tilmaameen in fanaanada Nadiira Nayrus ay si hoose u guursatay nin ayna qarinayso waxa ayna sheegeen bay tiri ninka ay guursatay inuu xoog ku haysto magaalada Hargeysa geystay. haddaba arrintaasi maxaa ka jiro waxaanu idin haynaa muuqaal live ah oo ay barteeda Facebook soo galiyay fanaanada Nadiira Nayrus kaas oo ku cadeynayso waxyaabaha jira sidoo kale bahda Haldoor oo arrintan ku gashay ayaa waxa ay idin soo bandhigi doontaa xaqiiqooyinka ku saabsan arrimahaas la sheegay fanaanada lagu soo eedeeyay. haddaba intaan u galin barnaamijkayga haddii ay tahay booqashadaada ugu horeeyay ee channelkeena fadlan subscribe saara si ayna ku dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino. daawadayaal sida aan wada ogsoonahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee caanka ah ee gabdhuhu ugu horeeyaan ayaa waxa inta badan ay kala kulmaan baraha bulshada waxaana lagu eedeeyaa arrimo inta badan aysan ku sugnayn. haddaba fanaanada Nadiira Nayrus oo ahayd hobal caan baxday fankeedana si weyn ugu hormarisay magaalada Muqdisho oo ku nooleed muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa iminka waxa ay tagtay magaalada Hargeysa. haddaba sidii ay u tagtay magaalada Hargeysa fanaanada Nadiira Nayrus ayaa waxay la kulmaysaa eedeymo kulul iyo dhaliilo sidoo kale waxa baraha bulshada isqabsaday aflagaado loo geysanayo fanaanadan walow dadka qaar ay u gafayeen si weyn waxa ayna ku tilmaameen in fanaanada xabsiga loo taxaabay sidoo kale qaar kale ayaa waxay ku tilmaameen in nin uu xoog ku haysto oo markaasi aroos xoog ah kula galay magaalada Hargeysa waxaana la sheegay ninkaas inuu ku hayo fiidiyoyaal. haddaba arrintaasi maxaa ka jiro intaan idin daarin fiidiyowga ay ka hadlaysa Nadiira Nayrus waxaan rabnaa inaan si rasmi ah u cadeyno in eedamahaas aysan waxba ka jirin. tan ugu horeyso oo ay tahay in fanaanada Nadiira Nayrus xabsiga loo taxaabay arrintaasi ayaa waxay tahay been iyo waxba kama jiraan waxaana lagu eedeeyay fanaanada Nadiira Nayrus in ay qaaday hees ay u gafayso Somaliland hase yeeshee heestaas oo ahayd mid jamac ah oo dad badan kala dhaxaysay ayaa dadka qaar waxay u fasirteen siyaabo kala duwan hase yeeshee saas oo ay tahay wax dhib ah oo kaga imaaday fanaanada ma jirin oo gaf loogu geystay maxaa yeelay inta badan dadka Soomaaliyeed ama Hargeysa ku noolow ama Muqdisho joog gabdhaha waa laga ixtiraamaa waxayna fanaanada Nadiira Nayrus si sharaf ah ugu nooshahay magaalada Hargeysa iyadoo aan wax dhib haysan taas inaga ayaa cadeeyayno. dhanka kale waxaa la sheegay fanaanada in nin si xoog ah ku meersaday. haddaba arrintaasi maxaa ka jiro suurtagal ma tahay in 2019 ay suurtagal noqoto arrintaani waliba lagu sameeyo qof caan ah oo dadku ay wada yaqaanaan. haddaba arrintaasi waxa leenahay waxba kama jiraan fanaanada ayaa waxayna afkeeda ka cadeysatay inaan xilligan wax qaba aysan jirin haddii iyada la aroosayna oo arooskeedu noqonayo mid shaacsan oo ay Soomaaliyo idil meeshay joogtaba ay ka war hayso arooskeeguna ma ahan ayay tiri wax la qarqariyo anigu waxaan ahay qof dheeman ah haddii la aroosanayna Soomaaliyo dhan ayay garanayso. haddaba daawadayaal fanaanadan qoobka ciyaarka iyo jaaska ku soo caan baxday ee Nadiira Nayrus ayaa barteeda Facebook live ka soo gashay waxayna ka cadeysay arrimahan iyo eedeymaha loo soo jeediyay waatan fanaanada Nadiira Nayrus oo afka furatay sheegaysana wixii dhacay oo ah inaan dhib loo geysan waxa ayna baaq u dirtay dadkii gafka u geystay iyadoo ku tilmaamtay in laga fiican yahay waxaas waxayna dadka Soomaaliyeed ka codsatay inay arrintaas share gareeyaan. waxaan idinkuna sidoo kale idin leenahay fiidiyowgan si share gareeya si ummadda Soomaaliyeed u gaaro gabadhan sharafta leh aan sharafteeda u wada dhoorno ila daawo muuqaalka. horta soo dhawaada waxaan idin hayaa youtube-ka waxaa wareegayso nadiiro waa la xidhay nadiiro waa aroostay adigu adduunyo dhan baa youtube-ka wareegaysa marka dadka youtube-ka la qaar badan way igu jiraan baan u maleynaa dadka rufiyaaniinta wararka qaada ama sida qaldan dadka wax uga faafiyo. horta anu alxamdulillah shukr rabbil caalamiin de wax la igu xidhan ma sameyn dhagarna maan gelin qofna maan dilin ma fahanteen alxamdulillah waa nabad qaba caafimaadkayga tamaam waay dadka inta iga naxaysay ee Facebook-iga igala soo hadlaysay aan ka harsan way ku hooyin waay dartoodan caawa live-kan soo gal inaan anigu nabad qabo oo caafimaad qabo caafimaadkaygu taam yahay aan layna xidhin de waxna la igu sameyn anu ilan dhagar maan gelin qof maan dhagaraynine alxamdulillah shukr rabbil caalamiin waa nabad qaba aad baan u mahadsantiin sida diga walwasheen aad ii soo xiriirinayseen teeda kalena dadka Nadiir way guursatadaas ku haya waxaan guursaday ma lahan ka dhaha marka walaalayaal oo hubka dhiga idin dhihi lahaa oo warkayga kooban oo dhameystiran intaas buu ku egyahay ka udhihi
intaas sii qaata dadka iimaanka la ee nadiiraba hadday arkaan hore ka sii qaata maxaa la igu kiin shubay talo sonkor maa la igu kiin daadiyey gowdhaha markaa warkayga saasuu ku egyahay hala iska daayo waxaa xunxuna la wareejinayo qof walaashiina nahay inaad micni wax xun iga qaadatiin ama wax xun igu soo timaatiin qalad bay idinku tahay markaa alxamdulillah shukr bil caalamiin nabad qaba ciirteeda baa jugla walaalo dee yaa haddaan afka xidda idiin gashto haddaan afkii muqdisho idiin gashtana magowaan raaya magowaan raaya ma fahanteen markaa naga daayada dhibaatada aamin ilaahay xifdiyo an ilaahay ku xifdiyo walaalo soo dhawaada warkayga inta suku egina warkayga si badii ma rabo aad bad mahadsantihiin waa inaad share gareysaan gaarsiisaan dadka xumaanteeda jecel mar walba inay dibin daabiyayaan waxaanan ahayn igu tilmaamaan wada waa inaad gaarsiisaan warkaas dhammaystiran caafimaadkayga taam waaye waa nabad qaba qof xidhay malaha hadaan u dhagarna maan geyso qofna maan dilin waxay la qaadayeen heesun bay ahayd heestana waa laga wada sinaa ma fahanteen markaa aad bad u wada mahadsantihiin hala sii qaado intana intay jecel ha sii faafiso ha tusiyaan inaan nabad qabo waxna qabin ma fahanteen teeda kalena guurkii waxaad ka sheekeynaysaa qof walba xor buu yahay adaan guursadana adduunka dhan ma gariiri la waxba idinka may qarsoonaadeen marka wax la wada la joojibanana idin oran lahaa waa kaasa guurkayguna saas raqiis maaha wad ogaan lahaydeen marka dhibaatada iga daa ehelkayga baa tihiin waxa Facebook ku jira daway ehelkayga wixii igu dhaca wixii aan qabo inay ogaadaan marka dee waa inaad gaarsiisaan kuwa iimaanka beelay ee YouTube-ka uun saas u dhaxtaagan baantii war bugaandada meel dhig jira geynaya haloo sii sheego warkaas aad baan mahadsantiin aad baan idin wada salaamaya dhamaantiina waa kaas qofka la sheeg qof la jecel yahay inuu yahay waan ogahay laakiin dee sheeg ma xumaan iga sheeg oo aanan ahayn dee ma suurta galayso fahanteen marka intaan dul qaadan karo waan dul qaatay laakiinse markii dadka i jeclaa ay wareeriyeen maxaa ka jira ay idhaheen taas darteed baan soo galay in anigu nabad qabo oo aanan xidhnayn oo alxamdulillah shukr rabbil caalamiin aan dadkaygii familkayga ku dhex jiro baan sheegayay aad baan idin wada salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtiin idinka bye bye waxaan rajeynayaa inaad guud ahaan ka soo bogateen muuqaalka haddaba arrintan ayaa si rasmi ah u cadaatay waxaana fanaanada sharafta badan leenahay sharaftaadu way dhowran tahay waxaa tahay fanaanadeeni madaxa ayaad noo saaran tahay Nadiira Nayrus fanka ayaa ku